dadaal galeen gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo gudoomiyaha xisbiga Urud Jiral Faysal Cali Waraabe dadaal ay u galeen soo deynteeda ay ka soo dhameeyeen madaxweynaha inuu igu sii daayo cafis madaxweyne ayaa arrinkan ku soo dhabaaday laakiin warar kale waxay sheegayaan in aad jeelka ku xanuunsatay sida daraadeedna madaxweynaha markuu eegay in caafimaadkaaga uusan wanaagsanayn uu sida kugu sii daayay xanuun waa jiray imika muu ahayn muddo ka soo wareegtay imika hadda xaaladeedu waxa weeye way soo ladnaanaysay ama way fiicnaatay ba alxamdulillah maalin kadib soo fiicnaanaysay laakiin ma ogi xaaladda yani xanuunka in ay u sababaysay xukuumaddu ma ogi anigu tahay ilaa imika ma ogi wax shuruuda oo lagu xiray soo deyntaada ma jirta wax shuruuda aan anigu shakhsiyan u saxeexay ma jiraan ma ogi haddaadan wax saxiixin laakiin wax hadala oo idin dhex maray mas-uuliyiinta oo lagu yidhi maalan waxaanoo kale ha samayn iyo waxyaabaha qaar ku dhaqaaqin iyo aniga muxuu ahaa shakhsiyan layguma odhan cid kale lagu yidhi muxuu ayagaa ka jawaabi doona laakiin wax gaar oo aniga inta la yimi oo ay xukuumaddu igu tiri waxaa samee ama waxaa samayn ma jirto bal nooga warran marka noloshaadii jeelka intaad ku jirtay muddada sanadka iyo bisha sidaay ahayd niyow noloshayda jeelka wax badan baan anigu kasoo faa'iidaystay waxna waa aan soo baray waxna waan soo bartay macallin ayaan ka ahaa jeelka gudihiisa anigoo maxbuusa arday ayaan waxa aan barayay af carabiga muddoodii aan ku jiray waxaan kusoo arkay maxaabiis aniga tayda iloo siiyey oo runtii muxuu ahaye aan dareemay inaanay dhibibay ahayn wax marka intaad xabsiga ku jirtay jirdil ah oo lagu geystay miyay jiraan abadan ma jiraan wax jirdila oo dushayda la taabtay ma jiraan yani waa ilaahay baan u mahadnaqayaa askartii ilaalada ka ahayd xabsigii aad ku jirtay sidee kula dhaqmi jireen niyow si ixtiraam ku jiro ayay ila dhaqmi jireen way qadarin jireen ixtiraam mutabaadala waxay ii qaban karaan way qabanayeen laakiin waxa weeye dee maxbuus waxa weeye xorriyadda aanay siin kareen yani fursadna waxay siiyeen inaan muxuu ahaye dee si fiican ugu dhigo meeshii oo waxaan ugu baahdo qaabka jawiga waxbarashadana way fududayn jireen cabdimaaligow horaa laguu xiray 2017 cafis baa lagugu sii daayey haatan waatan cafiska madaxweynaha lagugu sii daayey sababihii lagugu xiri jiray miyaad sii wadaysaa mise wax baa iska kaa bedelay sababaha laygu xidhi jiray ayaa muxuu ahaye u baahan in la xuso laakiin anigu intaan ka hadli jiray wanaag baan u arkayey waxaan u arkayey halka hagaagu ku jiro halka toosinta ku jirto oo waxay iga ahayd muwaadin muxuu ahaye aragtidiisa bixinaya anigu xabsigii aan la kulmay aniga laftaydu iyo muxuu ahaye wixii dhacay oo dhan waxa weeye maanta anigu xagga dambaan dhigay oo dhinac kastaba waxa weeye waxaan u soo jeediyey aynu hore eegno oo aynu bog cusub aynu furno taa macnaheeduma waxaa weeyaan in wixii hore aad ka baxaysid oo aad joojin doontid anigu wanaag baan samaynaya wanaaggii aan waday muxuu ahaye dee kama bixin arrimihii wanaagsanaan halkii baan ayaan ka wadayaa laakiin dhinac kala jiray laakiin dhinac kala jiray oo lagu eedeynayay inaad kicin samaynaysay inaad xaqiraysay nidaamka Soomaaliland inaad waxyaabo badan oo ka soo horjeeda ama liddi ku ah Soomaaliland lagu haystay ma jirin arrimahaas ma jirin wax xaqiraada ma jirin wax kicina ma jirin qof shakhsi oo caadi ah oo barta Facebookisa ku qora YouTubekiisa wax ku baahiyaan ha marka waxa weeye wanaag baan waday wanaag waxa weeye toosin in si aan dhabo khaldan aynan u marin ayaan tilmaamay Cabdimaaligow dad baa waxay ku doodayaan inaad magac raadis ahayd oo weliba aad mararka qaar isticmaalaysa waxaan jirin dadka fikradda noocaas qaba maxaad ugu jawaabaysaa runtii waxba kama jiraan inaan magac raadinayay waxa weeye alxamdulillah dad badan oo Soomaaliyeed waan isu naqaanaa nin dad raadinaya inay bartaan ma aan ahayn fikrado khaldan oo qofka laga faafiyo way jiraan wax khaldan oo aan beena oo aan baahiyay oo Facebookayga laga soo helayaana ma jiraan aad ban anigu isaga dhowri jiray wax aan jirin inaan baahiyo waxaan ku dadaali jiray cidda aan dhaliilayo inaan run ka sheego xitaa haddaan ka hadlayo ma siyaasi baa tahay ma samafalaad tahay ma qof dadka u doodaad tahay ma wariyaad tahay dad badan baa su'aalaha isweydiinaya marka maxaa tahay waxaan ahay bani aadan baan ahay dareen leh oo dareenkiisa aragtidiisa ku gudbinaya kala qaybinta noocaasa aad baan uga soo horjeedaa in qofka lagu yidhahdo ma waxaanaad tahay mise waxaanaad tahay maba koobnaan karo qofku marka waxa weeye qofku nolosha ku hareeraysan inuu aragti ka dhiibto nin go'aansaday inaan aragti ka dhiibto baan ahay waxaad tidhi waxaan doonayaa in wixii hore laga tago oo laga soo gudbo oo haatan cutub cusub la furaa marka ma lagugu qasbay hadalka may laguma qasbin laba wadaan haystay inaan xanaf iyo nacayb iyo argoosi aan ku hadlo iyo inaan haadiyo gacanta wanaagsan marka waxaan go'aansaday inaan taa wanaagsan aan furo marka maaha wax laygu qasbay waa go'aan aan qaatay anigu haatan xorriyadaadii baad dib u heshay maxaa kuu qorshaysan inaad samaysid runtii shaqada ugu weyn ee ugu muhiimsan aan doonayo inaan qabto waa barnaamijka kaalme kuwan ee samafalka ahaa inaan halkii kasii wado oo aan ballaariyo ayaa ii qorshaysan